داود يلا حد كلا soo xadaya hoyga Casho Maxamed Axmed oo dad fara badan ay u madalsanayeen qaybgalka xafladda aroosteeda balse ma aysan dhicin si daro dadka halkan fadhiyo waxay u midaysan yihiin kulan duceed loo sameeyo Casho Maxamed Axmed oo ku baxday gacan askari ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya sagaalkii bishan maalintii Jimcaha ahayd qoyskan waxa ay uga dhigan tahay maalin madow waxaa ka baxday Casho Maxamed Axmed oo ay ku jireen diyaarinta mashxarada guurkeeda oo ay ka harsaneed wax ka yar toddobaad nasiib daro waxa ay ku geeriyootay shaqaaqo ka dhacday waaxda xalan ee degmada Wadajir oo ay deegaan ahaan ay u degneed Maxamed Axmed Weheliye waa adeerka Allah u naxariistay marxuumadda waxa uu door muhiim ah oo ku lahaa barbaarinteeda waxa uu telefishinka SDN u sharaxaya sida ay wax u dhaceen dhacdadan oo si weyn u taabatay qoyskooda iyo guud ahaan dadka deegaanka ayagu xabad hoos u dhigayna soo galeen ciyaalka u firaaqeen meesha isla markii goobtii soo aadane gabadhan dukaanka gashay way ka soo baxay xabadaha markay maqash guriga carartay markay istir aleelay waa istaageen anaga xataa darbiga kala dhakanay oo asana miis meesha wax lagu beer hadda adin tusi doon uu ag joogo ayay tir way baxeen albaabka fur markay furis xabad meesha ka soo gashay ana ku soo meesha ka baxay ku soo dhinac ka soo gashay dhinac ka baxay xabad darbiga ku dhacday ayaan ku sheegay abeena furtani dib way ku dhacday xabad way dhacday ayagana markay booy carareen ciyaalka ibn baxaafad dambi gardar lagu yimid hadin meed waxooda looga dhigay gabar walaashooda meeraan waa marka waalis daba bursaday ilaa iyo jagboontigan gal meedka dadan xul saaray inay qaadaan nin madaxgeel laga qaaday xaguugii anaga ayadan u tagnay taliyada u tagnay waxaan ciidankaana waxaan soo jirnay kan tuugi saddexdan qofood aniga xabad ridi maanaan inuu yiri meesha tagaande xabadina si waana soo baabiiyeen hadina waxa la soo habsiga waxa la soo saldhiga baadi wuxuu yiri dadka inta isku keen askartii iyo tuugi sidii xagga marugii askarta qoryaha laga dhigay booshka laga dhigay wala fariisi ana dacwadii gabadhan gudbiyay fahmin ay nagu sameeyeen ayayna waxay dhaheen hooyo Madiina Cabdullaahi Faarax waxa ay wali dareemaysaa tiiraanyada ay ku reebtay geerida Casho waxayna dawladda Soomaaliya ugu baaqday in ay cadaalad hor keento askartii ka dambeysay falkan dabeecad ahaan iyo dhaqan ahaan sidee ahayd Casho ما شاء الله gabadhan kuwan dal ida iga ficnad maanta walaashay waa aabbaha ida kuwan dal maanta ida ka jeclaa ida iga ficnad gabadhi guriga ila ciyaarkii ila siiyay Allah yarxam maanta way dhimatay dadkii dilay waxaan rabi lahay meesha ida martay inaan la marsiyo wax kale aad maanta aan rabo ma jirto hadii cadaaladnimo jirto meesha ida martay inaan la marsiyo jeclaa la gabadhaas ragii dilay maxaa akhbaaro waad ka haysaa ragii dilay inay xirin waa la sheegay wili inaan meesha goobta guri ma aadan baan saa u naxay sirr aan qorin sirr u jiifay baan maanta le banaan soo baxay ugu dambeeyna codsiga ugu dambeeya aad dirsanaysaa codsiga codsanaya waxaan jeclaa lahay aniga inaan gabadhaas meeshay markaas in abaalkood laga marsiyo dawladnimo jirto Aabe Maxamed Axmed waa aabaha dhale Allah u naxariistay Casho waxa uu ku tahmayay inuu soo safro ka qaybgalka farxadda guurka gabadhiisa balse ma aysan dhicin midaasi oo waxa lagu soo wargeliyay in la dilay gabadhiisa aabahan ayaa cadeeyay inaysan jirin cid ilaa ay hadda kala hadashay dhacdadan oo ay ku geeriyootay gabadhiisa hay'adaha garsoorka ayuu ka dalbaday in cadaalad la hor keeno dadkii ka dambeeyay falkaasi aniga waxaan sheegaa gabartaas anaa dhalay magaala beledweyne shalay 5 saac ka imid qadar allahayna ku dhacday waxas ilaahay ogoon wax qof waxas ilaahay dilina warta ma dilan waa qadar allah ku dhacday laakiin waa la dhintay gabartayda waa la dili dad hadaa la dilo oo macnaha la dilo dadka dhulka kama bixin ilaa hadda beriga labin u taa umaleyna wax hoodi isoo yiro alxamdulillah ila soo xariir aabo amaamad madaas bal waayal fadhigaado fadhiis bal waa wala hadlayna wax yiri laba qof xeer la leeyahay ilaa hadda labada cidii ka dhashay ilaa hadda ma ogi reer xamar haddaad tihiin macnaha waxaa waaya aniga gabarteyda ilaaha isii wiilka dumaashadeeda ayaana soo korsaday daacadnimo iyo muslimnimo hadday jirto xamar sidii la sheegay siyaad bara as aaga baxay qulubtiisa badan iyo maasiqiisa iyo qurunkiisa daacad kama jirto waxaan sheegaa ninka hadda kursiga ku fadhigo farmaajo la dhahayo gabarteyda ilaaha wate cadaalada wiilkeyga wuxuu oo sheegay
ayaan la qabaa cadaaladda halee keeno muslimnimo saacal soomaalinimo hadday jirto haddaa xamar weligiis masaq maasaqaa lagu sheegaa hadday jirtana waa sida midda aaga jeedo ehelada qoyska caasho maxamed axmed waxa ay ka doonayaan in ay cadaalad ka helaan hay'adaha garsoorka dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. Yusuf Maxamed Axmed, SDN TV, Muqdisho.